السلام عليكم دمانتين saaxiibada sharafta badan filimku wuxuu bilaabmay December 1941 xilligii ciidamada Jarmalku soo galay midowgii Sovieti waxaan markaa aragnaa baabuur military oo Jarmal ah oo istaagay meel baraf ah askarta ayaa kadib gaariga kala soo degay lamaane ruush ah oo ay soo qabteen ninka ayaa madaxa waxa ugu jira jawaan markii laga saarayna waxa la ogaaday inuu u labisan yahay sida Hitler tani waxay dhibaysaa Naaziyiinta laakiin ninku wuxuu sharxayaa inay yihiin oo kaliya jilayaal wax ka dhigayay masrax markii taas maqleen ayay askartu ka codsadeen inay jiliin sameeyaan naagtu way kala walabaynaysaa iyadoo ka baqaysa in la dili doono si kastaba laakiin ninku wuu aqbalay inuu isku dayo kadib wuxuu ku kacay falquus ah isagoo iska dhigaya Hitler si kastaba ha ahaatee Jarmalka ayaan la dhicin jilinkiisa waxayna u sheegayaan inuu joojiyo taliyuhu wuxuu markaas faray ragiisa inay dilaan lamaanaha daqiiqado kadib waxa soo baxay shishiyahan dahson oo iyaga wada laayay waxa soo baxday inuu yahay ugaarsadaha ciidamada Jarmalka oo loo yaqaano Red Ghost oo caan ku ah dilka askarta Jarmalka ah taasoo keentay in cadawgu ay hadda ugaarsanayaan isagoo ay madaxiisa dul dhigeen abaalmarin weyn kadib waxa uu bilaabay inuu biliqaysto qaar ka mid ah cuntadooda oo uu xitaa la wadaagaya lamaanaha oo aad ugu mahadnaqay kadibna waxay weydiinayaan magaciisa laakiin wuu ka dhaga adeegay oo ka tagay goobta waxaan aragnaa koox ka mid ah askartii Ruushka oo ka haray ururkoodii oo isku dayaya inay dib ula midoobaan wada baraf ba'an ah kooxda waxa ka mid ah hogaamiyaha kooxda Dead iyo xubnaha kooxdiisa Politrag Kostia Moryajok iyo kalkaaliso dumar ah oo lagu magacaabo Vera waxa kale oo jira nin dhaawac ah oo lagu magacaabo Kolya kaasoo lagu sido bareelo muddo kadib Dead iyo Kostia waxay la kulmeen wiil yar oo qarka u saaran inuu barafka ku dhinto wiilka magaciisu waa Simpleton wuxuuna isku dayayaa inuu u sharxo inuu yahay askari Ruush ah Kostia ayaa markaa baaraya jaakadiisii oo ma uusan helin wax hub ah ama wax laga shakiyo halka markay marayso waxaan ogaanaynaa in Kostia uu nabar ku leeyahay hal il oo uu sidoo kale carab la yahay inkastoo ay ka shigsan yihiin Simpleton inuu yahay basaas Jarmal ah Dead wuxuu haddana go'aansaday inuu kaxeeyo markay sii socdaan safarku wuu sii adkaanayaa markuu barafku bilaabo inuu si weyn u da'o kadib waxay soo agmareen meydka askar barafowday waxayna go'aansadeen inay habeenkii ku hoydaan goobta kadib waxay ku soo ururayaan meel dab ka shidan yahay si ay isu kululeeyaan qof kasta wuxuu bilaabayaa inuu sheekeeyo marka laga reebo Simpleton kaasoo meel fog ka eegaya Kolya ayaa markaa bilaabay kaftan xiiso badan si uu soo jiito qof walba dareenkiisa laakiin daqiiqado kadib dhaawicii soo gaaray dartiis ayuu u baqtiyay taasoo qof walba ka nixisay Vera aad ayay u ooyeysaa oo ugu murugoonaysaa isaga wayna caddahay in Kolya uu agteeda ka ahaa qof muhiim ah subaxdii xigtay dhowr ciidanka Jarmalka ah ayaa yimid goobta uu Red Ghost ku dilay askartooda intay goobta nadiifinayeen waxay ka wada hadleen sidii uu u baabi'iyay 61 Jarmal ah 2 bilood gudahood markii uu tan maqlay taliyaha sare wuxuu amray Captain Brown iyo Klein oo ka hooseeya inay ninka u soo qabtaan sida ugu dhaqsaha badan Sovietku dhinaca kale waxay sii wataan safarkooda waxayna ugu dambeyntii yimaadeen guri yar waxay u muuqataa in looga guuray weerarka ciidanka Jarmalka awgiis Moryajok ayaa aadaya marka hore suu u hubiyo wuxuuna u yeeray asxaabtiisa kadib markii uu go'aamiyay inay amaan tahay gudaha wuxuu ku arkay miis ay saaran yihiin khamri iyo cunto fudud wuxuu isku dayayaa inuu cabo laakiin Kostia ayaa si lama filaan ah u soo baxay oo joojiyay tani waxay dhalinaysaa muran u dhaxeeya labadooda maadaama Moryajok uu ku adkaysanayo inuu cabo khamriga laakiin hogaamiyaha Dead wuxuu muujinayaa inay tahay dabin ay Jarmalka dhigeen oo loogu talagalay Sovietka waana cunto iyo khamri sumaysan kooxda inteeda kale ayaa isla markiiba raacaysa waxaana aragnaa in Vera ay uur weyn leedahay Dead iyo Politrag ayaa baaray guriga oo soo ogaaday dadkii deganaa oo lagu dilay maqsiinka kadibna waxay meydka ku daboolayaan buste ay ka heleen meel u dhow muuqaal kale kooxda Brown ayaa lagu arkay iyagoo baraf dhex maraya Klein wuxuu u sheegay meesha uu ka howlgalo Red Ghost inta qof ee uu dilay iyo tuulada uu joogo si kastaba ha ahaatee Brown ayaa soo dhex galay isagoo weydiinaya inuu jecel yahay qubayska diiran iyo in kale Klein wuxuu ku jawaabay inuusan ka helin laakiin Brown wuxuu tilmaamayaa inuu aad u xiiseeyo qubayska diiran marka loo eego Red Ghost markuu tan maqlay Klein wuxuu sheegay inay jirto tuulo cidlo ah oo u dhow oo leh qubayska diiran oo aad u fiican wuxuu sidoo kale u xaqiijinayaa Brown in tuuladu ay amaan tahay oo aysan jirin wax cadow ah oo jooga mar kale iyo guriga Dead wuxuu go'aansaday inay ka raadsadaan tuulada u dhow cunto iyo kibriid Vera ma dareemayso fiicnaan sidaa darteed waxay go'aansatay inay la joogto Moryajok oo ilaalinaya iyada si kastaba ha ahaatee isla markii ay kuwa kala tageen Jarmalka ayaa imaanaya isla guriga Vera markay aragto iyada waxay si degdeg ah ugu dhuumanaysaa sanduuq weyn hoostiisa Klein wuxuu Brown tusay cuntada sumaysan ee miiska saaran isagoo ku faanaya inay tani tahay shaqadiisa dad badan oo Ruush ahna ugu dilay si guul leh
dhanka kale Moryajog wuxuu ka daba yimid asxaabtiisa kuwaasoo aan aad u fogaan wuxuu ku wargeliyay in Jarmalku ay yimaadeen guriga Vierana ay khatar ku jirto Politrak ayaa wejiga feer kaga dhuftay oo ku canaantay sababta uu cidlada uga soo tagay gabadha si kastaba ha ahaatee Moryajog ayaa ku andacoonaya inuu dibadda u baxay suu u soo kaadiyo balse uu arkay Jarmalkii kadibna uu soo cararay sababtoo ah kaligiis lama dagaalami karo kooxda ayaa hadda ku qasban inay dejiyaan qorshe lagu badbaadinayo Viera waxay dib ula soo laabanayaan qoryahooda waxayna isha ku hayaan Jarmalka bal haddii ay dhacdo inay baxaan mar kale iyo guriga askartu waxay Brown u diyaariyeen qolka qubayska waxayna bilaabeen inay ku ciyaaraan doonfaarka laakiin Brown markiiba wuu soo muuqday oo toogtay xayawaanka wuxuu ku amray inaanay ku ciyaarin cuntadooda oo aysan mashquulin dhanka kale Viera waxay sii wadaa inay si aamusnaan ah uga fiirsato booskeeda dhuumashada meel kale Simpleton wuxuu la hadlayaa Dheer wuxuuna weydiinayaa waxa ka qaldan isha Costia hogaamiyaha ayaa shaaca ka qaaday in waqti dheer ka hor Costia uu tufaax ka xaday beertiisa Deed ayaa xabad cirka u riday suu u cabsi geliyo balse wuu turunturooday oo uu isha ku dhufsaday laan geed ah Deed wuxuu qirtay inuu weli dareemayo dembiga shilka uu geystay dhanka kale Cleen wuxuu uga digay Brown inuusan tegin qolka qubayska sababtoo ah Red Ghost ayaa u dhow tani waxay ka caraysiisay kabtanka oo wuxuu bilaabay inuu canaanto kii ka hooseeyay dhanka kale askari kale oo lagu magacaabo Gunter ayaa maqlay dhaqdhaqaaqa Viera ee sanduuqa hoostiisa kadib sanduuqa ayuu furay oo naxay markuu arkay gabar ku jirta wuxuu isku dayay inuu ilaaliyo oo uu si aamusan uga tago laakiin Brown wuxuu dareemay inay wax jiraan oo weydiiyay waxa dhacay ugu dambeyntii Gunter waxa lagu qasbay inuu qirto inuu qof ku dhuumanayo sanduuqa intaas kadib Brown wuxuu bilaabay inuu Viera su'aalo weydiiyo Gunterna uu u turjumo Brown wuxuu u muuqdaa mid u naxariisanaya iyada oo xaqiijiyay inaysan waxyeelo u geysan doonin Viera ayaa markaas daha ka qaaday inay leedahay uur 8 bilood ah gurigana ay iyada leedahay si kastaba ha ahaatee Cleen wuxuu ogaaday inaysan ku jirin mid ka mid ah sawirada qolka suran oo uu tuhunsan yahay inay been sheegayso Viera ayaa markaa bedeshay sheekadeeda iyadoo sharaxaysa inay ka soo carartay tuulo deriska ah oo ay magangeliyo ka soo raadsatay halkan nasiib daro dhibaatadu waxay soo baxaysaa marka Cleen uu gees ku arkay dharkeeda militariga iyo aqoonsigeeda taasoo muujinaysa inay tahay askari waxay bilowday inay argagaxdo oo ay ka barido inaysan dilin laakiin waxba uma tarin Cleen wuxuu bilaabay inuu si naxariis daro ah u garaaco taasoo keentay inuu Gunter banaanka u soo ordo oo uu matago muddo kadib Cleen wuxuu guriga ka soo saaray Viera oo aan kabo qabin askartii Soviyetka oo guriga meel fog ka daawanayay ayaa aad uga naxay Deed wuxuu cadeeyay in Viera aan la badbaadin karin oo ay tahay inay baxaan si kastaba ha ahaatee Simpleton ayaa si lama filaan ah u soo cararay oo u gurguuranaya xayndaabka hore ee guriga Moryajog markuu tan arkay ayuu raacay isagana labaduba waxay si sahal ah uga takhalusan 3 ilaaliye Jarmal ah oo godka ku jiray dhanka kale Cleen ayaa go'aansaday inuu dilo Viera laakiin mid ka mid ah askarta da'da weyn ayaa ka soo horjeestay isagoo sheegay inay aad ugu adag tahay ciqaabta haweeneyda uurka leh Cleen wuu aqbalay oo wuxuu taa bedelkeeda go'aansaday inuu toogto Viera ayaa markaa bilowday inay habaarto iyadoo ku andacoonaysa in Ilaahay uu ku ciqaabi doono dembigiisa markii Gunter uu u turjumo erayadeeda Cleen wuu ka labalabeynayaa inuu dilo wuxuu Gunter u dhiibay bastoolada isagoo sheegay inuu haysto 2 daqiiqo oo uu ku dilo haweeneyda balse qof ayaa askariga madaxa ka toogtay oo dilay waxa soo baxday in Red Ghost uu yimid oo uu dhowr bam gacmeed ku tuuray guriga Viera waxay ka faa'iideysanaysaa fursadan si ay ugu cararto xayndaabka askarta Soviyetka ayaa sidoo kale bilaabay inay weeraraan Jarmalka iyagoo kaashanaya Red Ghost waxay ku guuleysteen inay dilaan inta badan Naaziyiinta dhanka kale Brown oo ku jira qolka qubayska ayaa isagoo qaawan u ordaya maqsiinka isagoo magangeliyo doon ah Red Ghost ayaa si dhaqso ah u yimid qolka qubayska halkaasoo Cleen uu ku shubay biyo karkaraya Cleen ayaa dabadeed isku dayay inuu cararo laakiin wuu turunturooday oo wuxuu wejiga ku dhufsaday qori oo goobta ku suuxay waxyar kadib wuu soo toosayaa laakiin wuxuu iska dhigayaa inuu dhintay Red Ghost uma fiicna maadaama uu sidoo kale miyirka beelayo gubashada daran ee jirkiisa awgeed kadib markay dileen qof kasta askarta Soviyetka ayaa neefsanaya oo nafisaya dabadeed waxay gudaha u soo gelinayaan Red Ghost oo miyir daboolan waxay isugu soo urureen miiska oo ay bilaabeen inay cunaan cuntadii Jarmalka uu ka tegay waxay ka wada hadlayaan wixii la sameyn lahaa marka xigta halka Viera ay si lama filaan ah u bilowday inay foolato nasiib wanaag Dheer wuxuu leeyahay xoogaa waayo aragnimo ah dhanka dhalmada sidaa darteed isaga iyo Simpleton waxay ka caawinayaan foosha dadaal dheer kadib ugu dambeyntii waxay dhashay wiil caafimaad qaba qof walbana wuu u dabaaldegayaa dhanka kale waxaan aragnaa Brown oo u labisan sida naag oo ku ordaya wadada koox Jarmal ah horteeda kooxdan waxaa hogaaminaya isla sarkaalkii markii hore u xilsaaray ugaarsiga Red Ghost wuu ka naxay muuqaalka Brown oo uu ku eegay muuqaal niyad jab leh waxyar kadib Red Ghost ayaa toosay oo bilaabay inuu diyaarsado qorigiisa kelimad ma oranayo oo si fudud ayuu uga baxayaa guriga Soviyeetku waxay ka fahmeen habdhaqankiisa in Jarmalku uu u dhow yahay sidaa darteed waxay isu diyaarinayaan dagaal
guriga banaankiisa Klein ayaa ugu dambeyntii kacay oo bilaabay inuu cararo muuqaalkii xigay ciidamo badan oo Jarmal ah ayaa isku geedaamay guriga oo bilaabay weerarkooda waxay bilaabeen inay ku tuuraan bam gacmeedyo burburiyay guriga kala bar nasiib wanaag ma jiro qof ruush ah oo la dilay waxayna bilaabeen sidoo kale inay ku weerar celiyaan Vieira waxay ku dhuumanaysaa shoolada gadaasheeda halka kuwa kalena ay dib uga soo tooganayaan dhufayskooda dheed isagoo qiiraysan ayuu Costia ka raaligeliyay ishiisa oo uu isu diyaariyay inuu difaaco isaga markuu Jarmal ku soo dhawaaday Red Ghost wuxuu dilay dhowr ka mid ah wuxuuna bam ku tuuray taliyaha dheed sidoo kale wuxuu dilay cadow badan ka hor intaan isaga laftiisa la toogan oo la dilin Politrak ayaa si xun u dhaawacmay intii uu dagaalku socday waxaana ka murgacday daanka si kastaba ha ahaatee Moryjog ayaa daanka feer uga qabtay dibna ugu soo celiyay meeshiisa wuxuuna siiyay xoogaa khamri ah kadib markuu xoogaa bogsaday Politrak wuxuu qabsaday qoriga dhashiikaha isagoo aad u sakhraansan wuxuu maareynayaa inuu dilo 4 cadow ka hor intuusan ugu dambeyntii toogan oo dilin Brown daqiiqado kadib Moryjog waxaa lagu dhuftay bam gacmeed wuxuuna si naxdin leh ugu dhintay isla goobta Costia waxaa sidoo kale toogtay Brown isagoo u muuqda inuu soo afjarayo noloshiisa kadib markii ay dileen qof kasta oo kale Red Ghost iyo Brown ayaa ugu dambeyntii foolkafool isugu yimid waxay galayaan dagaal arxan daro ah oo ay ugu horeeyaan qoryo beynaadyo kadibna gacmahooda ugu dambeyntii Red Ghost ayaa ka adkaaday oo si ba'an ugu dilay Brown mindidiisa laakiin markii uu ninka wanaagsan u muuqdo inuu ka adkaaday Klein ayaa soo muuqday oo ka toogtay Red Ghost dhabarka isagoo dilay askariga Jarmalka ah ayaa waxa meel fog ka toogtay shiishyahan dahsoon waxa soo baxday inay ahaayeen Vieira iyo Simpleton kuwaasoo ku guuleystay inay badbaadiyaan ilmaha muuqaalka soo socda waxaan ku aragnaa isla lamaanihii bilowga filimka koox kale oo Jarmal ah ayaa ninka gacanta ku dhigay waxayna ku garaacayaan meel ay isugu yimaadeen dad badan xaaskiisana way joogtaa oo iyadoo aan garab haysan ayay indhaha ka daawanaysaa sarkaalka Jarmalku wuxuu markaa ku dhawaaqayaa in qof kasta oo arkay Red Ghost uu safka ka soo baxo haddii kale ninka uu dili doono markay cidi u jawaabi weydo ayuu ilmo yar soo qabtay oo ugu hanjabay inuu toogan doono markuu tan arkay jilaagu ugu dambeyntii wuu hadlay wuxuu qeexayaa sida Red Ghost uu u badbaadiyay oo uu u dilay Jarmalka maalmo ka hor isagu kama baqin waqtigan oo wuxuu bilaabay inuu si cad u habaaro Jarmalka sarkaalkii Naaziga ahaa markuu hadalkaas maqlay aad buu u carooday wuxuuna askartiisii ku amray inay dilaan si kastaba ha ahaatee nin shiishyahan ah ayaa toogtay taliyaha iyo dhowr kale oo Jarmal ah isagoo isla goobta ku dilay jilaaga iyo xaaskiisa ayaa sidoo kale gacmo maran ku weeraray dhowr Jarmal ah oo ay dileen intaa kadib shiishyahanku wuxuu baaranayaa Jarmalkii dhintay wuxuuna kala baxayaa qalabkooda wuxuuna ka bilileqaystay wax kasta oo cunto ah ama hub ah jilaaga ayaa eegaya oo gartay inuu yahay qof kale laakiin wuu iska aamusay marka filimku dhamaado waxaan ogaanay inuu ninkani dhab ahaantii ahaa Costia kaasoo ka badbaaday dagaalka oo qaatay dowrka Red Ghost muuqaalkan ayuu ku egyaa fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena commentiga hoose noogu reeb kulanti dambe oo aad u xiiso badan mahadsanid